Sacdiye Cali Siyaad waa hooyo dhashay 6 caruur ah waxa ay la xanuunsanaysaa xanuunka haya xangulaha oo muddo 2 sano ay la xanuunsanaysay. 2 sano 8 bilood oo kamid ah waa ay la dhul taalay oo waxba ma aysan qabsan karin. Ma haysato walaal iyo waalid la qaybsada xanuunka haya oo aan ahayn walaalaheeda muslimiinta Soomaaliyeed. Sacdiye xanuunka haya dhaqaatiirta ayaa u sheegtay inuu qalin yahay oo aan dalka waxba looga qaban karin. Isbitaalada ay tagtay magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ah isbitaalka Digfaar iyo isbitaal kale. Dhaqaatiirta ayaa u sheegay in xanuunka haya uu yahay qalin oo aan Sacuudiga meel ahayn lagu qali karin. Sacdiye ehelkeeda iyo walaalaheeda ma joogaan oo waxay degan yihiin Itoobiya waa dad reer guuraaya oo aan awoodin inay dalka ka bixiyaan oo ay dhaqtar u diraan. Ay ugu soo luuday intii 2 sano ugu soo luuday xanuunka laakiin awal daawo iyo markii aan isticmaal xogaa uu qamcin jiray oo 2 bilood aan ku adeegan jiray laakiin hadda sida runta markii intii 8 bilood kamaanan adeegan xanuunkaas ina markaas la igu soo tuuray kaan dhul aalan ahaa inta ku horeydana uu soo hayo hadda kulligood inuu saameeyo halis u taagan yahay oo dhankaan hadda aad uga darnaa dhankaan hadda waxaan dareemaa inuu xanuunku sii saameynayo oo dhinaca kale u sii baaqo tagay isbitaalka Turkiga oo Digfaar tagay haddana waan tagay isbitaal kale oo Lubnaan la yiraahdo oo ku yaalo Soobe tagay labadaas isbitaal isku maray ayaga ku sheegay in dalka waxba looga qaban karin in dalka waxba looga qaban karin xanuunkaas xanuun xoogan markuu qabto dariska dhan dhawaaqay way maqlaayaan waan taga dhaga sidii qof wal amal noqona waa carcarara irbad mil garaankeedu yahay 100 mil la garaan alle ugu dhuftaa wax yar inta jirka ku jirto aan dhulka isku celin karaa jirka markay ka baxdo sideedii aan noqonayaa irbadaas maxay tahay irbadaas waxaan waabiyo waa dhaqaatiirta kusoo siiyay dhaqaatiirta ninka soo badganaya iyo duru jiray marka ka bacdina aan gobolada aan soo aadana in isticmaalay dantu ila gashay oo xoogaa hadda jirka markii xoogaa lagu daro xoogaa aan ku joogo karaa marka jirka ka baxdana xanuunku sidiyan ka ah xanuunku ilaa madaxa iyo margiyada uu saameeyay isha xitaa waxa moodaa in ishu waabiyadee in soo dhacay moodaa ishu هيدا ما رجع يقول لي هنا طاير أبوه وانين إسكحمالية مرة وصوا يا مقالة سوسكوا مرة وصوا لا ودخل وشوا وهذا نين حوله يستمعها أما هنتلقى معها وحمالي لا يوجد وصوا بيو وما دخل وشوا أنا إلها جهرة أنا وحق السنكرنا حتى جاري بركنتاس الجودة قاسم أن كفي كردان قعدت اللي بله إلهي أن بريا أن وقلا أيجي يوم صار نقدا الماء قلقاس دوني ده نقص عربي قلقاس دايما ترنكو أو يعني إنك أو وحقق بنكر ملهم وأنت سنكر أما وحقق بنكر أما أن هنكر أما سيرتو ودنا هذا ساموان أها حنون تربى قبناي والله رفناي أمين في الله قلقلناي بنان كسولة عرّا قيلنا وسله حافظها مقلايا لما انتقى ونور كاس وحنون قبضنا هاي قبنا هاي حنون كان أنت الصنوف هاي من بلاد مشيكة حنون كان باي وصل لوداي أنت 2 سنة وصل لوداي حنون كان لكن أول داو اللي ما كان استعمال حقه وقمع جري و2 bilood من أديكن جري لكن هذا سيدا runta markii intii 8 bilood kamaanan adeegan xanuunkaas ina markaas la igu soo tuuray kaan dhul aalan ahaa. Waxay walaalaheeda muslimiinta Soomaaliyeed dal iyo dibadba ka codsatay inay caawiyaan oo waxay u tari karaan ay ku caawiyaan. hadda ilaahay ma tala saartay laakiin aniga dadka hadda aan la dhashay ama idalay Itoobiya jiraan hadda waxtarna kuma oogay waa iska reebay قلا هذا waxay tarayaan isleeyahay saaka waxay u tarayaan oo qalin inta ku qaadaan xanuun kaska ilaahay wax badbaadin kare ee ka badbaadinayaan waan garan waay badan oo aniga iska caawin karin hadda saaka ehliyad macnaha ama qof ila soo taq qaado oo qalaya ama ka caawin karaan isleeyna meel ku ogeyn waxay iga caawin karo oo walaala ama dad ama dibadda jooga in walaale iga caawiyaan aan ka caawisanaya. walaal caawi waa hooyo Soomaaliyeed oo maanta garab kaaga baahan